mucjisooyin waxaa jira allah uu qur-aanka inoogu sheegay iyo kuwo aan cayaanan indhaheenna ku aragnay kuwaasi oo dhammaantood ina tusinaya awoodda oo allah uu leeyahay iyo kelinimadiisa. haddaba barnaamijkan gaaban waxaan idinkugu soo gudbinaynaa mucjisooyinkaasi mid ka mid ah oo ka hadlaysa meesha isugu yimaadaan ama isugu darsamaan labada badood uu allah qur-aanka ku sheegay, midna ay macaan tahay oo haraadka bi'inayso, midna ay bannaan tahay, taas oo allah inoogu nimceeyey. marka meeshaasi aad tagto mucjiso kaa yaabiso oo aad u weyn ayaad arkaysaa, taas oo ah in labada biyood ay isku darsan yihiin haddana ay kala soocan yihiin. yaa isku daray yaase kala soocay? allah jalla jalaaluhu. arrintan ayaa ah arrin weyn oo muslimiinta tawxiidkeeda taabanaysa, islamarkaana aayad weyn oo cayni iyo qayb isugu jirta ah. inkastoo dadka aan islaamka ahayn ee khuraafaadka waxyaabaha kale aaminsan ay wax kale ka dhex arkayaan mucjisadani, waxaa jira dad aaminsan sayniska iyo waxyaabaha uu ka yidhaahdo waxyaabahan oo kale, waxaana aaminsan arrintani dadka qaar waxyaabaha uu sayniska yidhaahdo ayagoo cilmi ahaan ku soo bartay iskuulladii ay soo dhigan jireen. haddaba aan ogaanno marka hore waxa ay diinteenna suuban ka tiri iyo waxa uu sayniska ka yidhi. waa kan sheekh anwar maxamuud oo arrintaasi ka hadlaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. walaalayaal waxaan rabaa arrin yar inaan ka hadlo ku saabsan cilmiga barashada badaha iyo cilmiga ama culuumta biyaha arlada. waxaa hadda baaritaanka kusoo cadaaday ay culuumta biyaha iyo badaha ay soo cadeeyeen ama ay daaha ka qaadeen oo ku saabsan biyaha oo dhanaanka ah oo loo yaqaano the hard water iyo biyaha macaanka ah oo cusbada lahayn oo loo yaqaano soft water. waxaa mucjiso ah labadan biyo markii isu imaadaan ama la isu keeno ama la isku daro in uu ka dhalanayo barzakh ama wax kala saara labada biyo ama kala qaybiya ama kala sooca oo ay u yaqaaniin culumta sayniska surface tension force. surface tension force waa waxa kala sooca labada biyo, kuwa dhanaanka ah iyo kuwa dhanaanka ahayn, kuwa cusbada lah iyo kuwa cusbada lahayn. waa biyaha macaanka iyo biyaha dhanaanka ayuu kala saaraya. baaritaankana hab fara badan ayaa loo isticmaalay ama loo hagaajiyey. badda oo webiga oo badda galo, webiga loo yaqaano Mississippi ayaa laga qaaday sample ama biyo yar baa laga qaaday, iyo badda uu galo dhanaanka ah iyadana sample laga qaaday. marka labadii sample ayaa experiment la aaday shaybaar ahaan ama wax in lagu barbaara. markii meesha baaritaanka la tagay ayaa biyaha oo macaanka ah lagu shubay galaas oo transparent ah oo lagu shubay. biyaha dhanaankana waxaa lagu shubay galaas oo asagana transparent ah. galaaska saddexaad asagana waxaa lagu shubay labada biyo lasu keenay, biyaha dhanaanka oo badda ah iyo biyaha macaanka oo webiga Mississippi. markii labada biyo lasu keenay waxaa lagu shubay galaaska saddexaad. ukun baa lasoo qaaday, waxaa lagu dhex riday galaaska koowaad oo biyahooda ah biyaha macaanka ah. biyihii markii ukuntii lagu dhex riday, ukuntii way ishay, salka ayay fariisatay. galaaska oo biyaha macaanka ah ukuntii way ishay ama salka bay tagtay. galaaska labaad oo biyihiisa dhanaanka ah waxaa lagu soo dhex riday ukuntii markii lagu riday way sabaysay, maysan ilil laakiin way sabaysay, floating ayay samaysay. galaaska saddexaad oo biyaha labada biyo la isku daray mixka ah, ukuntii markii lagu dhex riday ukuntii waxay istaagtay kalabarka. galaaska salkana may fariisanin, korna way kasoo tagtay, kalabarka ayay istaagtay. marka waxay dhaheen biyaha koowaad oo macaanka ah waxay dhaheen the soft water has less density, less temperature, less salinity than the hard water, that's why the egg sank. waxay leeyihiin biyaha macaan way ka fudud yihiin wayna ka qaboob yihiin biyaha oo cusbada lah, tanana sabab u ah ukunta ilay isha.
galaaska labaad oo biyaha dhanaanka waxay dhaheen the hard water has more density, more salinity, more temperature than the soft water, that's why the egg floats. waxay dhaheen biyaha dhanaan way ka culus yihiin, wayna ka kulul yihiin, wayna ka dhanaan yihiin biyaha macaan. tanana sabab waa ukunta inay sabayso, sababta ukuntiya fudud biyaha culus. galaaska saddexaad oo ukuntana ilin ayna sabayn waxay dhaheen if you mix hard water and soft water they do not mix. biyaha macaan iyo biyaha dhanaan haddaa isku darto ma isu keento iskuma qasmaan, iskuma libmaan. waxaa meesha ka dhalanaya there is a barrier created known as surface tension force. waxaa meesha ka dhalanaya barzakh ama wax kala xijaabo labada biyo ama kala saaro ama kala sooco oo magaciisu ah surface tension force. marka force-kani oo loo yaqaano surface tension ayaa wuxuu kala saaraa labada biyo, biyaha dhanaanka iyo biyaha macaanku kala saaraa, kala soocaa. biyaha dhanaanka iyo biyaha macaankan wuxuu kala soocayaa waa laba biyo oo ku kala duwan dhinaca culayska, ku kala duwan dhinaca dhanaanka, ku kala duwan dhinaca kulaylka, ku kala duwan. marka tani ayaa sabab waa labada biyo inay kala soocmaan, meeshana ka dhasho barzakh. barzakhaas oo loo yaqaano surface tension force. marka waxay dhaheen labada biyo kuwa dhanaanka ah iyo kuwa macaanka ah haddaa isku keentid iskuma libmaan, iskuma qasmaan. waxaa meesha ka dhalanaya barzakh oo loo yaqaano surface tension force kala celiya labada biyo. marka tani waa cilmiga hadda lasoo ogaaday oo baaritaanka hadda cusub oo culumta sayniska ay hadda sameeyeen, culumta oo dhinaca barashada biyaha arlada iyo culumta hadda oo biyaha arlada ku saabsan oo hydrology loo yaqaano iyo culumta oo badaha oo oceanology loo yaqaano ayaa soo cadeeyeen. marka arintani waa arin hadda soo baxday oo culumta sayniska hadda ay soo cadeysteen. waxaa mucjiso ah marka oo la yaab ah qur-aankii loo arrimahani uu hor aga sii waramay uu qur-aankii noqday kutub wax walba ka warama. waa siduu ilaahay dhahay maa faradna fi lkitaab min shayin, kutubkii alle wax uu ku dhaafay malaha, wax walba uu ku sugay. waa aayadda kale uu ilaahay ayadana leeyahay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shayin wahudan waraxmatan wabushra lilmuslimiin. wanazalnaa waxaan kugu soo dejinay calayka korkaaga nabi maxamed sala allahu calay wasalam kitaaban kutubka qur-aanka tibyaanan likulli shayin ka warame wax walba. kutubka qur-aanka marka wax walbuu ka waramay. intuu aga waramay arrimahani waxaa muujiso ah suuratu furqaan ilaahay inuu arrintani si toos aga waramay uu leeyahay وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وحو إلهي وقصة سورة الفرقان وليه وهو الذي مرج البحرين وأسكك سكاني لبذ بيو هذا عذب فرات كونا أو معان أو عصبة لهين وهذا ملح أجاج كوا كلنا دنان أو عصبة لها أو عصبة كبضا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وحوية لي لحظة إنه كدشا برزخ أما وحك لصو على بذ بيو كلصارا. مركا وقرآنكي كن أفر بقل صنو ka horay ayuu arintani aga sii waramay. waa arin ay hadda culumta sayniska baaritaankooda kusoo cadaaday, qur-aankana horbuu aga sii waramay. waa siduu ilaahay leeyahay wahuwa alladii maraja albaxrayni, alle waa uu isku daraa labada badood. haadaa cadbun haadaa cadbun kuwa oo biyaha oo macaanka daran, wa haadaa milxun ujaaj kaasna kalena waa ka dhanaan aad u dhan oo afka diido. wajacala baynahumaa wuxuuna ka yeelay dhexdooda barzakhan, wuxuu ka yeelay barzakh. wajacala baynahumaa barzakhan wuxuu ka yeelay sohdin kala soco labada biyo وحجرا محجورا. marka waa qur-aankiisa saga sii waramay. aayadda suuratu furqaan kelima ah aayado fara badan ayaa ka waramay labadan biyo inuu ilaahay dhexdooda ka yeelay barzakh oo kala sooca labada biyo. waa suuratu raxmaan wahuwa alladii maraja albaxrayni hada cad. waa suuratu raxmaan uu leeyahay maraja albaxrayni yaltaqiyaan baynahumaa barzakhun وحجر محجور وهو الذي مرج البحرين. وكانت سورة الفرقان وإلهي أقورمي سورة الرحمن وكورمي. مركا وعين كاسي قرآن كي وحا نقضي كتب وحو بكورمي.
marka waa sidaas insha Allah waa mucjisada kale ayadana aan ka hadli doono ku saabsan quraankiisa. ruuxa muslimka ah ayaa laga doonayaa marka koowaad inuu iska dhiso caqiidadiisa iyo ku kalsoonaanta uu Allah ku kalsoon yahay inuu Allah wax walba adduunkan ka socda maamulaya iyo aakhiraba. dadka maanta waxay aaminsan yihiin ciidanka faraha badan iyo hubka faraha badan in ay ku siin karaan ammaan iyo nabadgelyo, laakiin ayaga ammaanka ma keenaan. amniga waxaa keena waa Allah. dadka waxay aaminsan yihiin lacagta badan in dhibaatada iyo gaajada looga baxo. taas waa been. dad badan oo lacag haysta ayaa gaajo u dhintay. nin waxaa la sheegay taajir ahaan jiray isla markaasina boqor ahaa. xoolihiisa lacagta uu haysto dahabka iyo jawaahirtiisa ayna is aqoonin. maalin maalmaha ka mid a ayaa ninkaasi isagoo khasnadiisa soo fiirinaya. khasnadiisa waxay ahayd guri weyn oo albaab leh. marka gudaha loo galo khasnado badan ayaa ku dhex yaalay. hal albaab ayay lahayd. dhulka hoostiisana waa ay ku taallay. markuu gudaha u galay ayaa albaabkii ku xirmay. cid ka warqabtana ma jirin. muddo markuu ku dhex jiray ayuu ku dhintay. maxaa yeelay lacagta iyo dahabka iyo luulkaba ma noqdaan raashin la cuno. sidoo kale dadka waxay aaminsan yihiin daawada inay caafimaad keento. daawada caafimaad ma keento ee caafimaadka Allah ayaa keeno. taas waa in aan aaminaa. culimmada waxay noo sheegeen 6 shay oo wada ah asbaabta lagu caafimaado, dhammaantoodna ay wada yihiin kuwa waafaqsan sunnada nebiga inay hal shay oo keliya dadka adduunka jooga maanta ka isticmaalaan, 5 shay oo kalena aysan isticmaalin. 5 shay waxaa ka mid a duco, in la ducaysto qofka markuu xanuunsado Allah uu baryo si uu caafimaad u siiyo. markii hore intuusan xanuunsan Allah uu baryo in uu cudurrada jira uu ka koriyo. talabaad waxa weeye tufta quraanka, suuradaha, aayadaha iyo ducooyinka soo arooray in la isku tufo. tan saddexaadna waxa weeye biyaha zamsamka oo la isku daaweeyo. tan afraadna waxa weeye xabad soodada iyo malabka oo la isku daaweeyo. tan shanaad oo soo raacda waxa weeye toobinta iyo gubitaanka oo la isku daaweeyo. dhammaan daawooyinkaasi waa sunnada nabiga calayhi salaatu wassalaam, laakiin lama doonayo qof walba oo sheegta sunnada inuu wax ku daaweynayo inaad aamintid oo uu ku daaweeyo. waxaa la doonayaa dad aqoon iyo cilmi u leh oo la aamini karo in ay markaasi ku daaweeyaan. waxaa jira dad fara badan oo sheegta inay sunnada ku daaweynayaan isla markaasina cilmigan aan soo baran. waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni gaabnaa ee maanta aan kaga hadlaynay mucjisooyinka biyaha, labada biyo ee isku darsama. waxaad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. haddii aad ku qanacday fadlan sabscribe noo saar, isla markaasina sheergaray si ay dad badan uga faa'iidaystaan. laga waa xaggiina mahadsanid.